Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelka ma isweydiisaa cuntadee u fiican inaan caruurtayda u sameeyo si uu aqligooda uu u bato ama ay brain healthkooda uu u fiicnaado maxaan u sameeyaa ma ahan kaliya inaan ka fikirno sidee cunuga jirkiisa aan ku weyneynaa ama aan ku cayilinaa laakiin also inaan ka fikirno sideen brainkiisa iyo maskaxdiisa sideen aan u develop garaynaa insha allah maxaa caawin karo inay developmentkaas ay caadi u noqoto inuu maskaxda ay u korto marka videogan waxaan kuu sharaxi doonaa 10 cunto kala duwan 10kaasoo ah waxyaabo badanaa la heli karo adduunyada meel kastoo ka joogtid haddii aadan heli kalina at least ugu yaraan 5 xitaa haddaa ka isticmaashid every day little bit waxyar waxaa waaye wax cunugaaga iyo ilmahaaga aada ugu fiican maskaxdoodana aada u kordhinaysa insha allah midka ugu horeeya waa blueberries waxay ku fiican yihiin inflammationka jirka iyo ay dilayaan ama ay hoos u dhigayaan marka si ay maskaxda ay u noqoto informationka maskaxda u baahanta iyo communicationka isla sameynayso inuu si fiican ay isku qaataan marka blueberries ciyaalka badanaa markay yaryar yihiin waa inaa u kala jirtid haddii kale sidaas haddaa u siidid waxaa laga yaabaa inuu dhunta uga istaago and then dhibaato waaye marka yogara ugu samayn kartaa kaligiisa u jarjari kartaa cheese u agdhigi kartaa midka labaad waxaa waaye ukunta everyday in la siiyo caruurta aaday muhiim u tahay hadduu cunugaaga allergic ku ahayn waa u dubi kartaa biyo ugu kari kartaa ukunta waxaa ku badan vitamin B-ga oo caawinayo inuu maskaxda wixii ay barato inay xasuusteeda ay adkaato marka xasuusta aada u fiicnaanayso memory aada u fiicnaanayo qofka ukunta cuno so insha allah anytime of the day maalintii waqti kasta oo siin kartid quraac qada casho ugu dar cuntooyinka ka samaysan green leafy vegetables waxaa waaye sida like spinach broccoli waxyaabahaasoo kale ciyaalka aaday ugu fiican tahay waxaa ku jira vitamin K na waxay ka caawinaysaa cuntada markay ka qaadato jirka wuxuu siinayaa maskaxda markuu siino brainka waxyaabaha ku dhex jira cellska iyo mataqaanaa si fiican u caawinaya inayna iloobin memoryga soo cunuga markuu wax barto waxaa loo baahan informationka inuu kayd gareeyo si uu hadhowta usoo ceshto so informationkaas memoryga dhan cuntada greenka u fiican so waalidiin badan waxay haystaan dhibaatooyin badan oo maha cunugayga iyo ciyaalkayga ma cunaan cagaar ma cunaan too much ma rabaan ma jeclo so markaasoo kale adigaa laga raba inaad ka aqli badisid ilmaha aqligaaga inaad u isticmaashid sidaa cuntada ugu qari lahayd so waalidka qaar gabdho badan cuntada markay way u shiidaan marka cuntada u shiidaan kadib ay ugu daraan suugada ama maraqa so wixii dhan oo rabtid cunugaaga inaad siisid waa u shiiday markaa u shiidid isagoo shiidan ugu dhex daray suugada so ayakoo yaryar markaa ku bilaawdid hadhowti ma dareemayaan dhadhanka so ma ku dhibaysa adigana hadhowti inaad ka dhaadhicisid inay wax tahay fiican in lagu daro cuntada laakiin caruurta aanan qudaarta la siinin isla marka dhadhanka way dareemayaan so waxaa aada u muhiim ah horta cunuga markaa uurkiisa qaadidba inaa adiga cuntid qudaarta si uu usii dhadhamiyo markuu dhashan isla marka ku bilaawdid cagaarle ku bilaawdid midda kale waxaa waaye malayga especially salmonka sardines kuwa la dhahayo faatka badan ku jiro waxaa ku jiro omega 3 na waxaa waaye wuxuu u fiican yahay wadnaha wuxuu u fiican yahay faatska fiican waaye oo jirka u baahan yahay insha allah midka kale waxaa waaye turmeric of Soomaali waxay ku dhahaan huruudda cuntada lagu karsado hindida isticmaasho badanaa haddana soomaalida maasha allah way isticmaalaan marka suugada ugu dhex karine huruudda waxay ku fiican tahay huruudda marka waxay ka caawinaysaa inuu brainka ama maskaxda inuu informationka kayd gareeyo midka kale waxaa waaye walnuts ama lows ay dhahaan soomaalida so lowsaska way kala duwan yihiin midkan walnut la dhahaa walnut marka waxaa waaye isagoo xitaa la marin karo rootiga aa soo gadan kartaa haddii aadan heli karin isagoo xabad noola markaasna waa u dhigaysaa snack camal ay u cunayaan marka waxbarashada ku sameynayaan ama markay iska fadhiyaan ama rooti u marine ama even waa ugu dari kartaa suugada hadday yaryar yihiin rooti cuni karin haddii kale yogura ugu dare many ways aa u isticmaali kartaa cuntada toddobaad oo caruurta u fiican inay caqligooda u siyaadiso waxaa kamid ah oats oo ah mushaari
mushaari waxay ka caawinaysaa inuu jirka blood sugar levelka like sokorta jirka ku jirto inuu regulate gareeyo inuu si fiican u isticmaasho jirka and then inay ka caawiso inay maskaxda aqliga iyo u ziyaadiso so midka kale waxaa waaye beans digir kala duwan sidaa rabtaa ugu samayn kartaa whether that is inaa full camal ugu samaysid ama iyadoo ansalaata ugu dartid ama inay cuntada ugu dartid like and then ay bariis ku cunaan sidaa rabtid u samayn kartaa midda kale waxaa waaye tufaaxa waxaa ku jiro a lot of maasha allah fitamiinaad badan fitamiinaadkaas oo loogu talagalay ilmaha inay ka caawiyaan maskaxda inay aqliga u siyaadiyaan midka ugu dambeeyo oo ugu muhiimsan ciyaalka in la siiyo waa avocado waa number 10 meel kasta lagama helo avocado maybe wadamada qaar ma yaalaan haddii aadan haysanin dhib ma lahan sagaalka kale isticmaal laakiin haddii aad heli kartid avocado waxaa ku jira vitamin K and folate oo feerada jirka u baahan waxay ka caawinaysaa brain development maanta oo dhan aan kasoo hadlaynay inay caqliga u siyaadiso caruurta marka qaabo badan oo isticmaali kartaa avocado haddii aad taqaanid ama waxaa u samayn kartaa ansalaata ugu dari kartaa ama raba u saari kartaa ama rootiga u saari kartaa ama waa u smooth garay kartaa like shake camal ugu samayn kartaa as long ay cabaan ama cunaan cuntadaas waxaa waaye goalkeena taas waaye insha allah waxaan rajaynaa inaa ka hesheen videogan subscribe like and share assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu